maanta taariikhdu tahay 3 bishii January 2017 waxa xafiiska wasiirka caafimaadka sida aragtaan waxaan ku jiraa shirkii subaxnimadii aanu yeelinay maalin kasta oo intii ay dhaceen abaaraha waanu kaga wada hadalno xanuunada wadanka ay abaaruhu kusoo kordhiyeen iyadoo wasaaradda madaxdeedii ay ku maqnayd gobolada oo dhan agaasimay waxeedii iyo anigu laftiga aan ka soo noqday dhawaan gobolada bariga qaar kamid ah xaaladda guud ee wadanku way degan tahay shaqaalaha wasaaradda caafimaadkuna goob kasta joogaan waxay ku maqan yihiin hawlgalkooda caadiga ah maalin walbana waanu helaa warbixino sida ay wasiirada imika hor yaaleen warqada subaxlaha ee xaaladda wadanku halka marayso iyadoo aan ku soo ururinay wixii warbixinana soo wada helay wasiirka iyo wasiir dawlaha oo iyo labadooduba halkan imika goob joogka shaqaalaha wasaaradda intii ugu badnayd waxay ku maqan yihiin gobolada iyo degmooyinka dadweynaha reer Soomaaliland waxaan leenahay mar walba inuu ag taaganahay agtiinaan joognaa haddaan haafana wareed ka maqnahay waa la soo gaaraya waxaanu helay xogo badan oo ku hawlgallo xogaha qaar badan waxay noqdaan sidii loogu talagalay intooda badan laakiin waxay noqdaan xog aan sida saxda ahayn taasina waxay keentaa xogaha aan saxda ahayn waxay lumiyaan in kharash badan iyo waqti badan ku lumo iyadoo marka la sheego war aan sax ahayn ay habsaamayaan war sax ah oo laga hawlgeli lahaa marka waxaan ka codsanayaa waxyaalaha halista ah markay arkaan sida shubanka oo kale inay run ka sheegaan oo aan tirada la farabadin ee la yiraahdo xaaladaas halka ka taagan qof hebel la yiraahdo xanuunsanaya ama qoyskiisa ama carruurtiisa xogta saxda ah waxay dedejisaa tayeynta shaqada aad iyo aad u mahadsantii waxaan ku wareejinayaa wasiir dawlaha sidoo idin yiraahdo lihi wa sahbihi ajmaciin sida agaasimaha guud uu sheegay wasiirkuna uu idin sheegi doono abaarta ka jirta dalka ee ballaaran ee baahsan wasaaradda caafimaadku talaabooyin wax ku ool ah iyo ka qaaday waxa aanu leenahay system la yiraahdo HMIS micnihi subax kastaba waxaanu helaa xogta cidii xanuunsanaysa goobaha caafimaadka oo dhan waana loo soo gudbiyaa sidaan horeba u sheegnay wasaaradda caafimaadku baaraandeg iyo xog iyo talada ku gorfaysaa oo ay ku guurtaa sida daraadeed ilaahay mahadii kiisaskiina loo soo sheegay shubanka iyo xanuunada kale ee ay abaaru keenaan ay nafaqa darradu keento aad bay hoos ugu dhaceen subax kastaba xogta sidaas aanu helaa gobol kasta iyo degmo kasta oo jamhuuriyadda Soomaaliland sidii baanu heegan u nahay hawsha u diyaarnahay agaasimaha guud sida uu sheegay meel kastaba goob caafimaad iyo nus saaca qofka muwaadinka ee reer Soomaaliland u jirta idinkama dheerin hawshiina waanu wadnaa teamska yagii iyo madaxdayadii agaasimo waaxyeedkiina sidaasay kormeerka ugu marayaan dalka oo dhan alxamdulilaahi rabbil caalamiin hawshana halkaas aanu ka wadaynaa waxaan ku wareejinayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Sar marka hore waan salaamayaa dhamaantiin bahda saxaafadda marka labaad sida agaasimaha guud iyo wasiir dawladuba sheegeen wasaaraddu waxay ku jirtaa xaalad degdeg ah oo ah xakamaynta cudurrada ay keenaan abaaruhu waxaanu galnay dadaal aad u weyn waxaanu gaadhnay oo dawo iyo xirfadlayaal caafimaadba gaadhsiinay dhammaanba waddankeena meel kasta degmo kasta tuulo kasta waad kala socoteen baan u malaynayaa TV-yada dhammaan madaxda wasaaraddu way maqan tahay meelo kala gedisan kooxo kala gedisan bay wataan meesha from corner ilaa corner wasaaraddu way wareegaysaa dawooyinkii iyo wixii loo baahnaana way geysay dadaalka faraha badanina wuxuu dhalay in aan hoos u dhigno xanuunadii ay keenayeen abaaruhu keenayeen oo ay ka mid yihiin shuban biyoodka oo fureenka iyo nafaqa darrida waxaa farxad weyn oo maanta inaan sheegno meesha noogu daran oo ahayd wajaale waxaan ku guuleysanay inaan ka dhigno zero oo iminka reportkan helayna waxa weeye 3 maalmood ugu dambeysay
ma jiraan wax shuban biyooda oo wajaale nalooga soo sheegay ama ka dhacay taasina waxay ku timid dadaalka shaqaalaha caafimaadka ee wasaaradda waxaanu wadaynaa dadaalka ilaa intaanu gebi ahaanba tirtirayna xarunadaas waxaan u mahad celinayaa dhammaanba shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee ku jira reeganka dadaalaya meel walba maraya aad iyo aad noogu mahadsantahay waxba kama jiraan dhimasho way jirtay laakiin waxaan malanayaa inaanay agaasin haddaanan khaldanayn inaanay 8 qof ka badnayn dalka oo dhan waxaan arkayay joornaallo iyo tv ka hadlaya 12 qof oo ku dhintay coodanle waa been taas waa beeninaynaa coodanle dhulkii agaasimuhu soo maray ayay ka mid ahay maalintuu ka soo noqday laftigeeda ayay yidhahdeen 12 qof oo ku dhintay marka warkaas waa war beena hadda ka horna waan ka hadlay waxaan aad iyo aad uga codsanayaa miidiyaha saxaafadda guud ahaan warka ay helaan ee xaalad caafimaad ku saabsan in aanay sii dayn ilaa ay annaga naga caddeeyaan waayo propaganda beena oo keeni karta waxyeelo ku noqon karta dadkeena iyo dalkeena ayaa jirta marka fadlan haddaad heshaan war caafimaad oo odhanaya xaaladdaasi halkan ka taagan la soo xidhiidha madaxda wasaaradda oo ka caddeeya dhinaca kalena dadka propagandada wada ee siyaasadaynaya xaaladda abaaraha dalkeena ku jiro iyagoo cid ku dacaydeynaya iyana wax laga ka waantooba xaaladda ba dalkeena ku jiraa xaalad la isku propagandeeyo xaalad la isku dacaydeeyo midna maaha dhammaanteen waajib aynaga saaran aynu gacmaha isqabsanno ilaahayna barino si inooga qaado abaaraha ساعات يصير معك وقت المعلومة كسرعة تيجي سمي يشتي gobolada bariga wasaaradda caafimaadka priority u haayeen 3 sano barkii u dambeeyay awoodda iyadoo dhan waan suuginaa wax ka qabano wixii aan ka qaban karnayna waan ka qabano xaaladda caafimaadna aad bay u wanaagsan tahay waxqabadkii ugu badnaana wasaaraddu waxay ka qabatay gobolada bariga waxaanu ka dhisnay dhismayaal aad u badan waxaanu MCH-doodan kordhinay iskuullada caafimaadkaan dhisnay muxuu ahaa SDF-ta labada isbitaal ee Ceergaabo iyo Laascaanood waad la socotaa meelaha dhisma ka TB centers badan baanu soo kordhinay waxaan maleynayaa ummaddu way aragtaa khadar garan maayo meel hadii ka dhaaftee inaan bariga wax badan ka qabanay awoodeenu way xadiisan tahay oo wax walba sidii loogu talagalay uma qaban karno laakiin intii taalkeega ahay wax badan baan ka qabanay dhinaca kale isbitaalka Hargeysa waxaan maleynayaa inta wasaaradda joogay wax laga qabtay inaan laga qaban intii Soomaaliland jirtay indhaha macallina xafiis baan ku dhexlaayaba xafiis baan ku leeyahay wasaaradda ku leedahay aan anigu ka furay isbitaalka kormeerkaygu aad buu ugu badan yahay sanad walba waxaan soo kordhinaynay 3 sano u dambeysay dhismo cusub iminka waxaa dhammaanaya wada ogtihiin emergency international standard oo iminka gacanta laga qaaday iminka almost dhammaaday IC unit baan dhisnay waan hore ugu jirin payment wards baan soo kordhinay 30 qol ah waan hore u jirin wararkii baan dhisnay neonatalkaan samaynay dhisnay iminka waxaan dhisaynaa wararkii dhalmada oo miisaaniyadda ugu jira waxaan keenay qalab cusub waxaan dhisnay qaybta keliyaha waxaan keenay CT scan-kii ugu horreeyey ee u yeesho payment wardska waan sheegay qalab aad u fara badan ayaanu keenay mental health absolutely marka waxaan maleynayaa taana bal intaa tagto adigu waxaan maleynayaa waxa kugu dambeysay maleynayaa 3 sano barkoor khadaro kormeerka bukaanka xali waan tagaa waan isu taagaa aad baan u kormeeraa sometimes kowdiya markaan marmar habiib marka aad baan u kormeeraa laakiin iyo su'aasha labaad arkay khaatumo iyo wada hadaladii Soomaaliland bal taana waxaad ka leedahay okay waa su'aal wanaagsan anigu
kama harin wafdiga uu hogaaminayo guddoomiyaha xisbiga xaalad emergency oo abaaraha ah ayaan ku mashquulsanayn waqtigu maan helayn aan la jeclaa inaan raaco haddana waqtigu maan helayn inaan raaco waxaan ku mashquulsanayn xakamaynta cudurrada dhinaca heshiiska Khaatumo iyo Somaliland maalintii hore waa la weydiiyey sida laynoo sheegay ama aan ognahay wada hadal baa socda Cali Khaliif inuu Somaliland ku soo biiro oo ka mid noqdo dadkiisa dalkiisa u yimaado aad baan u soo dhaweynayaa anigu aad baan u soo dhaweynayaa ana mahadsantihiin ay ku soo saareen higlada garaadadu waxa weeye waa madaxa ugu sarreeya dhaqanka ee bulshada qadarin iyo mudnaan bay leeyihiin go'aamada ay soo saareenna sidaan anigu u fahmay waa dhammaan go'aamo uun ka hadlaya tabasho ay tabanayaan tabashadoodana waanu insha allah eegi doonaa waanu dabooli doonaa xaq bay u leeyihiin inay yidhahdaan waxaa nalaga weydiiyo arrimaha bulshadayada xaq bay u leeyihiin tay dalbadeenna waa taa waa madaxii u sarreeyey marka kolley xukuumad ahaan dib baanu isugu noqon tabashadoodana waanu tixgelin waa run xanuunadu aad bay noogu soo bateen xanuunadu weligood buu jiri jireen oo loo dhiban jiray laakiin imika waa la ogaaday oo qofka waxaas ahaya la oranaya halkii berigi hore lagu oran jiray bas buu u dhintay qayb kaliyaha sifaysa waynu leenahay oo runtii shaqo wacan qabata dad badanna badbaadisay waad ogtihiin markii hore dee qofkii awood la unbaa dibadda loo qaadi jiray markii kaliyihiisu dhintaan ama awood gabaan iminkase waxaynu leenahay xarun kaliyaha lagu sifeeyo oo aan dadka lacagba laga qaadin qof waliba uu awoodo mishiinadii sanad walba waan kordhinaa hadda miisaaniyaddii noogu jiraan inaan mishiinadii sii kordhino si baahidii oo dhan loo daboolo laba mishiin baanu ku bilownay hadda waxaa marayaan 8 ilaa 6 waan ku daraynaa dhismihiisana waanu sii kordhinaynaa dhinaca aad sheegtay waddankeenu dhaqaalihiisu aad buu yiri waddan la aqoonsanayana ma nihin quality control capacity-gii leh ay ku baari lahayd waxa dalka la soo gelaya ama cunto ha noqoto wax kale ha noqotee ma aynu lihin laakiin hadda ayaa la bilaabay in miisaaniyadda lagu daro waxaan rajeynaynaa dhaqso inaynu u gaadhno heer awooddeenu gaadhsan tahay in aynu waxa dalkeena soo galay iska baaqno marka dadaalku wuu socdaa aadna waad mahadsantahay